dadkii dhaawacyadu ka soo gaadheen dagaalkii shalay ka dhacay degmada taariikhiga ee Taleex ayaa la soo gaarsiiyay cisbitaalka dhexe ee magaalada Laascaanood halkaas oo lagu dabiibay iyadoo qaar ka mid ah dhaawacyadaas oo cuslaa loo gudbiyay dhanka magaalada Burco dhaawacyadan ayaa xaaladoodu kala duwaneed kuwaas oo rasaastu ay ka haleeshay meelo kala duwan kadib markii shalay ciidamada Puntland ay duqeeyeen degmada Taleex iyadoo uu jiro sida wararku sheegayaan khasaaro badan oo dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyeed bay isugu jira qaar ka mid ah dadkii dhaawac ahaa ee la soo gaarsiiyay cisbitaalka dhexe ee magaalada Laascaanood ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen annagoo saddex nin oo culimo ah meel fadhina marka rabna inaan iska yar qareersa qaad u fadhiisano ayaa waxa soo galay ciidan fara badan baa soo galay kabacdina birday halkaas magaalada ka xiga buu isku gadaamay rasaas bay markay soo gaadhin rideen birday markay gaadheen rasaas badan bay rideen kabacdina horay u soo dhaqaaqeen qayb ka mid ceelka Taleex yare la yiraahdo aagkiisa marka ay marayeen bay rasaas sida magaalada u soo fureen waan filayaa wiilal adigu iska maray caasaho qorya aakaya ku riday inay jiraan oo magaalada meesha aan joognay dacalkeedaas ah marka waanu kacnay waxaanu isniri hadaba meeshana dabada iskaga baxayoolka kala idin haysta kabacdina wax biyo maayaan moodo sida roobka oo kale ah oo magaalada ogadeediba ay sida casaatay maxaan ku dhahaa rasaas basta lagu sii daayay suu iyo tarasatay ma hubo tarasatay laakiin suu iyo shilke iyo kan maxabaroon iyo lamida qori culus bay aragsan ha aad iyo inaba aan kala soocin xaliis iyo qof hubaysan iyo qof kale iyo caruur iyo maato aan kala socolahay bini'aadanimada ka baxsan idinka dhaawacin xalay magaalada Laascaanood la soo gaarsiiyay intee baa haydan dhaawac halka la idinku soo gaarsiiyay dhaawac xalay la soo gaarsiiyay magaalada Laascaanood qaar idinka muddo dhaawac culus oo la qaaday baa jira miyaa waa jiraan nin dhaawac culus oo naga mid ah oo cerig Burco loo qaaday baa jira isla markiiba ambalaas ay gudbisay oo beerka ay kaga tiilay khasaarihii halkaas ka dhacay maxaa nooga sheegi kartaa inta la maqlay mooye dhimashada iyo dhaawac intee tirada laagtay xaqiiqo ahaan anigu marka aan ka hadlo oo dadkii aan saan u wareystay dhimashadu waxaa lagu yiri waa 7 nin dhaawac door oo adigu naga fududaa dhaawac ayagana meeshii buu jiraa aan ii tira koobnayn ku socda intaas anigu ka warhaya guryaha magaalada qaar baa dumida loo sheegay guryaha waxaa la sheegay wiil ka mid ah nimankii hubaysnaa oo dhalinyarada guri u galay waxaa lagu dhufay qori weyn oo halkii maxaan lahaa chief amase kii ka yara bayteen waa lagu dilay halkaas waa lagu dilay rasaas xagga kaga talaaday waxay kaga talaa bowdadaas laftu ma jabna laakiin muruqa weyn bay la baxday kelidana way kaga talaa kelida laakiin kor bay ka martay dhabarkaasna waxay ga yaala dhowr farid bay sideed ruux ayaa dhintay 5 kalena waa ay dhaawacmeen inta loo yahay kadib markii shalay ciidamada Puntland ay gudaha u galeen degmada taariikhiga ee Taleex halkaas oo isku horimaad uu ku dhaxmaray ciidamadii Khaatumo oo reer Taleex ee halkaas ku sugnaa Cabdiqani Ismaaciil Goox Somsa TV Laascaanood